hordhac. taariikhda sayid maxamed waa taariikhda dhaqdhaqaaqa daraawiishta gudaheeda oo muddo 21 sano ka soo horjeeday qabsashada isticmaalka ee dalka Soomaaliyeed. maanta waxaa maragmo doonto ah in dagaaladii daraawiishta ay ahaayeen kuwo gobonnimo doon ah oo ku dhararsan jiitintii halganka ummadda Soomaaliyeed ay u soo martay madaxbannaanideeda 1000 sano oo aynu soo dhaafnay. sayid maxamed cabdulle xasan wuxuu ahaa geesi aan gabasho aqoon, xeel dheere diineed oo dood adag iyo gabayaa fiiro iyo fahmaba ku ebyan yihiin. sifaalahan wadajirkoodu waxay siiyeen sayidka shakhsiyad la yaab leh oo tayi sare ah. shakhsiyadda qudheedu waa tan u suura gelisay inuu sayidku kor u hayo calankii xurnimada muddo sidaa u dheer. si buuxda uma ayaan dareemin taariikh qorayaashii hore qiimaha gaarka ah ay leedahay gabayaanimadii ina cabdulle xasan, marna ma ay garan xoogga aydiyolojiyada iyo doodda caaradda leh ee ku dheehnayd tixihiisa iyo tiraabkiisa. taariikh qorayaashii hore waxay dabciga sayidka ka falanqeeyeen xagga wadaadnimadiisa, iyagoo taas sabab uga dhigaya gumaysta nacaybka ku jiray iyo arrinta qur'a ay Soomaalidu ku raacday dhaqdhaqaaqa daraawiishta. waxaa run ah inuu sayidku ka dhiidhiyey xukunkii dalka Soomaaliyeed oo gumaysta gacanta ku dhigay, wuuna rumaysnaa inuu yahay waajibka sare ee qofka Soomaaligu inuu dhulkiisa xoraynta una soo celiyo sharaftii iyo maamuuskii ummadda Soomaalida ay lahayd, isticmaalkuna waxyeeleeyey. sayidku waxay ula muuqatay in daraawiishtu dagaalka ay ku leedahay safka hore. sidaa awgeed waxaa xusuus gaar ah mudan iimey oo ah meeshuu sayidku ku geeriyooday 1921 isagoo ku tala jiray inuu colal cusub isu keeno oo dagaalkii xoogaga gumaysiga uu kula jiray cusboonaysiiyo. isla magaaladaa iimey waxay ahayd meeshuu 30 sano ka hor 1891 uu qabsaday rasmukaneen naa'ibkii Menelik oo fadhiyey Harar si uu u cunaqabateeyo xornimada ummadda Soomaaliyeed. arrimahan wax uun iskooda isugu beegmay ma aha, waxayna ka markhaati kacayaan tixnaanta halganka ummadda Soomaaliyeed iyo himilada taaganta ah ay midnimadeeda ugu jirtay. inkastoo aanu taariikhdan sayid maxamed iyo noloshiisii gaar u ahayn ee uu guud ahaan taariikhdii daraawiishta uga warramayo, haddana sayid maxamed baa daraawiish abuuray, calankana u siday. sheekh jaamac cumar ciise oo wax badan isku taxallujiyey ururinta murtida iyo taariikhda daraawiishta wuxuu ku dadaalay inuu buug ku soo shaac baxsho dhinacyo badan oo ku saabsan taariikhda daraawiishta oo aqoon habboon aan hore loogu lahayn. waxaan shaki ku jirin in sidaa aawadeed aqoon-yahanada iyo guud ahaan dadweynaha wax badan taariikhdan u faa'iidayn doonta. ugu dambayntii sheekh jaamac cumar ciise wuxuu buugiisa ugu garsooray sayidka oo wax badan taariikh qorayaashii shisheeyaha ay ka eexdeen, marar kalena ay muunad jebiyeen iyagoon dhab u garan shakhsiyadda labalafoodka ah ee ina cabdulle xasan. intaanaan tilmaan ka bixin taariikhdan, waxaa habboon inaannu wax yar ka tusaalayno raarkii gumaysigu dalka Soomaaliya soo galay, dantuu ka lahaa iyo waxyaaluhuu ku markaday ama u geystay. sida runta ah, waaxdii dambe ee qarnigii 19aad guud ahaan Afrika waxaa ka dhacay tartan kulul oo dhex maray dowladaha reer Yurub. dowladahaas qaarkood waxay doonayeen dhul ay ka gurtaan waxyaalaha qaaliga ah, dahabka, dheemanta, cudbiga, naxaasta, dhuxusha, foolmaroodiga iyo alaabta warshadaha lagu socodsiiyo. qaarkoodna waxay doonayeen dhul ay ka helaan cuntooyinka aan dhulkooda laga helin. qaar kalena waxay doonayeen dhul ay ka duulaan haddii uu dagaal ka dhaco dunida guudkeeda ama ay dowladaha kale ciriiri ka geliyaan xagga ganacsiga. tartankaas ay qolo weliba doonaysay inay danteeda gaarto ayaa wuxuu keenay heshiiskii magaalada Baarliin lagu kala qortay 1884. heshiiskii labaad ee Baarliin ka dhacay bishii Febraayo 1885 ee Afrika lagu qaybsaday ayaa wuxuu furay tartan cusub. heshiiskaasna qodobadiisa waxaa ka mid ahaa in dowlad kasta oo heshiis la dhigata dad dhul deggan ay gar u leedahay inay heshiimaysato ganacsiga dhulkaas markay ogeysiiso dowladihii heshiiskaas ka qayb galay. wax badan bay Afrika waagaas aragtay ama la kulantay nin cad oo reer Yurub ah oo ku socda duq dad meel deggan madax u ah oo uu magaciisa maqlay, ama boqor ummad meel deggan u taliya,
isagoo gacanta midig ku sita xoog iyo maal uu dowladdiisa ka wato, gacanta kalena waraaqi cad oo uu doonayo inuu boqorkaas ama duqaas heshiis ganacsi ama saaxiibtinimo kula qorto. hase ahaatee ay taas ujeeddadiisu ka fog tahay oo niyadda uu ku hayo inuu dhulka taabo, dadkana gumaysto. sidaas daraaddeed ayaa 1884kii Ingiriiska oo ammintaas gumaysiga ammaan duule u ahaa uu degay xeebaha waqooyi iyo gobollada koonfur galbeed ee dalka Soomaaliyeed. sidaasoo kale ayaa 1883kii Faransiisku saldhig uga samaystay Oboq oo ah xeebta Jabuuti. 1892kii ayaa Talyaanigu xeebta Banaadir ka ijaartay suldaankii Sanjibaar. Talyaaniga iyo suldaankana waxaa dilaal u ahaa Ingiriiska oo Jarmalka ka fogeynayay xeebta Afrikada Bari. Xabashida oo ahayd dowlad Afrikaan ah ayaa iyana tartamadaas ka qayb gashay, waxayna boobtay herar 1897kii iyadoo Ingiriisku ku taageeray qabsashadeedii. isla markaas xabashidu herar kuma ay ekaan ee iyadoo Ingiriisku uu mar walba gacan siinayo ayay dalka Soomaalida hore u soo gashay oo 3 jeer oo kala duwan marba meel qabsatay ilaa ay soo gaartay xuduud ku sheega beenta ah ee haatan u dhexeeya xabashida iyo Soomaalida. haddaba inkastoo duulaamadaas iyo weerarradaasu ay ahaayeen kuwo gumaysigu xoog iyo maal ugu talagalay uguna tabaystay, dhibo badan buu kala kulmay, dad iyo maal badanina waa kaga baxeen. dagaalkii daraawiishta oo keliya maahee waxaa jiray dagaallo badan oo ka dhacay meelo badan oo kala duwan oo dalka gudihiisa ka mid ah. waxaa xusid leh dagaalkii dhex maray Talyaaniga, Hintire iyo Biyamaal. Hintire oo xilligaa ka koobnaa Sil Iskorgaarte iyo Ajuuraan 1904 ilaa 1912 ee ka dhacay dhulka haatan loo yaqaan Shabeellaha Hoose, iyo dhowr dagaal oo kala dambeeyey kana dhacay Kismaayo, Afmadow, Sarinley iyo Luuq. dagaalkii Sheekh Xasan Barsane, Ceelbuur iyo dagaallo ka dhacay Butiyaalo, Casayr, Baargal, Hurdiya oo ah xeebaha gobolka Bari 1926kii. dagaalkii daraawiishta ee Sayid Maxamed Ammaan duulaha ka ahaa wuxuu socday 1900 ilaa 1920, wuxuuna gaaray Dhiig Mayr ilaa dani geysiisay Ingiriiska inuu diyaaradda kula dagaalamo. inkastoo ragga buugaga qoray ay ka warramayeen dhinaca dowladahooda, libintana siinayeen, haddana dagaalkii daraawiishta iyo raganimadii Sayid Maxamed waa qarsoomi weyday. sidaa daraaddeed ayaa had iyo jeer waxaad aragtaa iyagoo runta agmaraya ama daqarradii dowladahooda loo geystay been aan huq lahayn ku daboolaya. inkastoo taasi dhacday kutubtay qoreen qaarkood aad baan u tixgelinnay. waxaa laga yaabaa inaad meelaha qaarkood ku aragtaan arrin si kale in loo maamulo ku habboonayd, haddaba talada ku dar adduunku waagaa siduu ahaa iyo heerkuu maanta maraayo. wixii gumaysta iyo daraawiish iyo Soomaalida kale dhex maray 1895kii ilaa 1921, afna lagama sheegi karo, buugna laguma abyi karo. hase ahaatee halkaasaa faraskaygiina gaadhsiiyey ilaa qaybta kale. haddaad taariikhdan ku aragtaan waxyaalo gef ah ama qalad ahaan u dhacay, ula kac nagama aha ee aqoon baa sida naga noqotay. waxaa laydinka filayaa inaad hagaajisaan. waxaa habboon inaan idiin mahadnaqo. like, share, subscribe. fikradahaaga waa muhiim. comment ka baxso.